sixir barar baahsan ayaa ka jira guud ahaan Somaliland oo ku saabsan qiimaha leydhka iyo waliba qiimaha shidaalka oo kor u kacay magaalada Burcana sidaas oo kale ayaa sixir bararkaasi u saameeyay sida uu ku waramayo wariyahayaga Cabdirashiid Timir sicir barar baahsan ayaa ka jira guud ahaan Somaliland iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa uu cirka isku sii shareerayo qiimaha qowtal daruuriga asaasiga ah sida biyaha leydhka maciishada iyo shidaalka waduni dayartiyo agoonti inta la iska dacal maray xaqoodii la duutiyay inta la iska dacal maray xaqoodii la duutiyay saraw kacan baahsan ayay dareemayaan bulshada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo ay ugu sii daran yihiin dadka danyartaahi qiimaha shidaalka lagu kala iibsanayo magaalada Burco ayaa saaka maraya 10 litir 120,000 oo shilinka Somaliland ah iyagoo sheegay inay tahay laba laabka qiimihii hore ee lagu kala iibsan jiray shidaalka dhawaaqa bulshada ee taagan maalin walba ayayna waxba iska bedelin ilaa haatan iyagoo cabashooyin isdaba joog u diraya xukuumadda Somaliland wallahi mushkilad weyn baa wadanka ka taagan oo xaaladdu waxay maraysaa meel aad u adag bay maraysaa hadday macaashada tahay iyo hadday shidaalka tahay iyo hadday qowtal daruuriga kale ee wadanka la isticmaalaya tahayba marka aad iyo aad baan wallahi uga xunay marxaladda wadanku taagan imika gaar ahaan gaadiidka shidaalku wuxuu kordhay marxalad ka sareysa boqolkiiba ka sareyso kordhay iminka waxay taagan tahay heerkii ama la iska dhigi lahaa ama kaalmaha shidaalka ay hayaan lala yeelan lahaa ee dadku ay gacmaha ula tagi lahaayeen maadaama oo dawladdu wax ka qaban laadahay wax cashuur dhaafa shidaalkii aan loo samaynin ganacsatadii wadankii ay xurta iskaga haysato sidoo kalena shidaalkii sida shirkadaha traafiguura iyo uu kooto ugu xiran yahay oo aanu jirin competition naga jabin karaa shidaalka oo aanu bulshadu ku baxsan karto marka waxaanu dawladda ugu baaqaynaa dadku waxay isugu imanayaan wixii la hayo hadii aan sixir bararka noocan laga jabin dan yartuna meesha way ka baxaysaa wasiirka ganacsigana gaar baan u cambaaraynayo ganacsigii meesha uu maraya maanta wayna ognahay haday shidaal tahay iyo haday maciisho tahayba kiin sixir bararka Somaliland ka jira waa mid masiibo ah oo dhigbax laakiin waxaan u sababeynaa shidaalka qaaliga xukuumadda maanta jirta wasiirka ganacsiga iyo shidaalkii oo cid gaar ah ay miisayso gabigeeduba hal jeeb ka baxaya dhibaatada meesha ka jirtaana waxa weeye shidaalkii oo lagu wareejiyay dad gaar ah oo ummadii ka ganacsanaya dhiigoodii saddexda xusbi qaran ee is haysta ee iyagu kursiga isku eriyanaya iyo dadka baahida iyo shidaal la'aanta iyo maciishad xumada u dhimanaya ee hadhowna codka loo soo doonanayo baaqiga hadha dadku way arkaan waxaan u leenahay xukuumadda iyo madaxda qaranka war ilaahay ka baqa dadkan aakhire ilaahay idinku idin weydiinaya haddii ay tahay xusbi iyo hadday tahay xukuumad talada haysa war dadkani gurbad maanta u baahan yihiin la isku dul qabsado la yiraahdo maanta reer hebel baa ula iyo xusbi waa la furaya iyo la furi maayo dadka lagu dul ololeeyo iyadoo dhiigoodii soconayo oo shidaalkii iyo maciishadii war kiishkii dhuxushaaba 150 maraya dawladda iyo musabixi dadkan u soo jeesto oo waxa ka qabto inta golaha ku jeedaan iyagu qabsanayaan dadkooda masaakiinta ah 4 saac guriga ku dulman dooxyada ku dulman xabaglayaasha wax kasta kii xanuunsanaya kii dhimirka wax kasta gacan laga qabto man lam yarham sagiirana wa ya'rif haqq kabiirana keena weyn iyo keena yar hadusan keena weyn ka yar hadusan ixtiraamin ka yarna hadusan keena weyn ixtiraamin ummadeena nabi maxamed ka mid maaha wallahi aniga horta sixir bararka maanta dadku ka cabanaya anigu horaan waa arkay horabay haysta aniga laakiin dawladii wax allaala wax ay shacabku ka faa'iideen ma jiraan aan sixir barar iyo hadii badmahay muxuu ahaa iyo qaali iyo hadii badmahay wax allaala shacabku wuxuu ka faa'iido ma jirto marka dowrkii dawladda meesha ka maqan marka aan waxaan kula tan la dawladdu shidaalka ka keento oo anaga qabatay nimankan ma garanayay bidhig miiratada ah anu hadeer meherad baan haystaa alaabta meherada ii taala dhamaanteed dibadda laga keenaa dibadda marka laga keeno dibadda dadka laga soo iibiyaa ganacsatada way soo iibsataa ganacsatadana waxaan loo eedayn karin maanta waa wada baamistarku waa xor buu madaxweynuhu xor buu sheegay xorriyadu waxay keenaysaa inuu qof waliba keeni karo wixii uu waxa ka helayo marka tartan baa jira ganacsatadu waxay kicin kartaa ma jirtaba horta annagoo sixir bar aad iyo aad la dalaadhacaynay ayaa maantana shidaalkii aad iyo aad naloo ku dalacsiiyo 12 litirkii maraya waxaanu qaadnaa waa dadka shicibka baan u shaqaynaa 2 baan gurnaa waxaan annagu tiglayaasha kaliya aan cidna waxba ku dalacin
marka aad iyo aad waxaan ugu baaqanaa xukuumadda Soomaaliland iyo cid walba ay khusayso dee shidaalkana laga jabiyo maciishada aad iyo aad u kacday oo dee annagana na saamaysan soo gaadhay shidaalka horta hadal ma jirayaan waxaan ka baqayaa ma yaandho dawlad boobay dadka inaan dadka boobno baa hadhayba maciishadana yaandho waxaan noqonaysaa in qori shubka bariiska reerkii qori ku ilaashado waayo ummadan iyo dadkan in la socon ba hadhay ayaan ku waxay leeyihiin leerka waqtiyeena anu waxaan jecelahay in leerka waqtiyaanba waayo nimanka ummadda shaqayban boobeynaaba wallahi waa ku xoognaa yaandho hadii si wax ka dayn waayaan iminka dee baabuurtii meel bas ka taaganti 120 shidaal kuma heli mees 120 wuxuu koonay macmiil baan u hayaa kaanta wuxuu koonaysan tan igay shidaal macmiil baan u hayaa koonaya kugu shubi maayo iminka 5 litir baan ku soo shubtay waxa laga siiyay 45 markii hore waxa naga qaadi jiray 230 walaana aad iyo aad u shidaalku ka markaas xir bararkaasi meel alaalmeel naga saameeyay garan mayna mucaashada shidaalka dawladda kana abaari waxba ka jiraan Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV Burco